maalmo ay dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya ku shirsanayeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya doodda ugu xooggan ay ahayd in la helo isfaham waara oo laga gaaro arrinta doorashooyinka mar kale ayay xalay fashilmeen wada hadallo la doonayay in dhammaan dhinacyadu ay isugu yimaadaan si loo gaaro heshiis rasmi oo ku saabsan tubta doorashooyinka Soomaaliya lagu dhaqangelinayo heshiiskii 17 Sebtembar ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ay meel mariyeen dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland waxay mar kale xalay soo qadimeen shuruudo cusub kadib maalmo la naawilayay isfaham siyaasadeed dhammaan dhinacyadu inay gaareen waa dood xiiso leh marka ay joogto arrinta doorashada Soomaaliya qodobada ugu weyn waa in farmaajo ka hor inta aan kulanka afisyooni la isugu tagin uu saxiixo warqadda xil wareejinta taas oo muujinaysa in awoodiisa madaxweynaha isdhintay la magacaabin karin saraakiil ciidan cidna aan xilka laga qaadi karin xukuumaddu ay tahay mid xil gaarsiin ah isla markaana awoodeeda oo dhan ay tahay mid kooban taasi ma sahlana marka laga hadlayo xagga fiila Soomaaliya laakiin dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland waa mid ka mid ah hadafyada waaweyn ee 6 bilood ee la soo dhaafay ay naawilayeen gaar ahaan wixii ka dambeeyay 8 February qodob kale oo meesha ku jira waa arrinta ku saabsan in kulanka guud ay ka qayb noqdaan madaxweynayaashii hore ee dowladda federaalka ee Soomaaliya taas laftirkeedu fiila Soomaaliya waxay u aragtaa mid aan waqtigan suuragal ahayn wakiilada caalamiga qaar ka midii waxay soo jeediyeen in loo baahan yahay dhammaan dhinacyada siyaasaddu ay heshiis rasmi ah gaaraan ka hor inta aysan imaanin yeerinta beesha caalamka isku dayo oo wada madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye oo nafis siyaasadeed abuuray toddobaadkii u dambeeyay ayaa hadda u muuqda kuwa mar kale xaaladda dib u celiyay dhinacyada oo dhan ay ku khasbeen hadda inay eegaan walaaca beesha caalamka iyo digniinaha ka imaan doona Mareykanka waa mid ka mid ah saaxiibada ugu weyn ee Soomaaliya ay waqtigan leedahay waana sameeyaha xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya waxa uu sheegay madaxda dowlad goboleedyada maalin ka hor in loo baahan yahay in la helo tanaasul siyaasadeed cidna aysan ka bixi karin Muqdisho haddii aan la gaarin xal rasmi oo doorashooyinka ah dowlad goboleedyada qaarkood waxay walwal ka muujinayaan arrinta ku saabsan tallaabo baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ay qaadaan waana in xukuumadda waqtiga loo kordhiyo iyo madaxweynaha waa tallaabo weyn oo halis siyaasadeed keeni karta ayay leeyihiin dadka taxliiliya arrinta siyaasadda Soomaaliya laakiin xogo kala duwan hadda waxa ay si rasmi ah u cadeynayaan in fiila Soomaaliya ay ku mashquulsan tahay dardargelinta qorshahaasi wixii loo gaaro Khamiista toddobaadkan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Arbacada ayaa la bilaamiyay inay leeyihiin kulan gaar ah oo looga hadli doono arrinta COVID-19 dadka aad uga soo horjeeda qorshaha fiila Soomaaliya waxay ku sifaynayaan in ajandaha uu yahay mid lagu hoos qarin doono muddo kordhin xoogaal kala duwan oo xaaladda la socdaana waxay sheegayaan in hadda ay aad u soo badanayso wararka la xiriira muddo kordhinta 13 bilood in ka badan oo loo samayn doono xafiisyada madaxweynaha iyo baarlamaanka xalima yareyn ay noqon doonto cidda maamuli doonta doorasho qof iyo cod ah ay dowladda federaalka ee Soomaaliya hadda doonayso in jihadaasi la aado tubtaasi haddii la qaado waa tallaabo kale oo siyaasadeed iyo hubanti la'aan muujinaysa marxaladda dalku uu wajahayo dad badani waxa ay durba xaaladda ku sifeynayaan inay noqon karto mid dhinacyada oo dhan aad ay u kala arti duwanaadaan mucaaradku waxa ay doonayaan in doorashada oo ay ku jirto arrinta xil wareejinta farmaajo degdeg loo hirgeliyo laakiin fiiladu taas waxay u aragtaa inay tahay in ka hor la gaaro heshiis siyaasadaysan maalmo ka hor waxaa jiray isfaham la xiriira arrinta ku saabsan xil wareejinta farmaajo gaar ahaan dhimidda awoodiisa taas oo ay sheegayaan in madaxweynaha federaalku uu soo dhaweeyay in marka uu ku dhawaaqo musharaxnimadiisa hawlaha doorashooyinka uu wadi doono ra'iisul wasaaraha laakiin taasi dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland waxay u arkaan arrin siyaasadeed oo ay dhici karto in khalad siyaasadeed uu mar kale ayaga ku yimaado beesha caalamku waa cidda hadda la sugayo hogaamiyaasha Soomaaliduna waxay u muuqdaan kuwo u diyaarsan yeerinta uga timaada xagga wakiilada caalamiga ah gaar ahaan Mareykanka iyo qaramada midoobay